مجاهدك حماس مولا قرب سينا يو مروى الباء قرقار يو يودنا مرينا يو ربا ما موصي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طلب العلم ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على طلب العلم وبين فضله وأهميته. عباد الله إن تحصيل العلم أمر مهم وإن تعلم في صغر يعود على الناشئة بنفع عظيم. وكما يقال التعلم في صغر كالنقش على الحجر. ولقد وعى الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث وغيرهم أن تعلم صغار له كبير أثر في نشوء الطفل العلمي حيث يجعله أقوى ثباتا وأرسخ في ذاكرته مما يتعلمه الإنسان وهو كبير. وروي أن الحسن بن علي كان يقول لبنيه وبني أخيه يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يروي أو قال يحفظه فليكتب. وقال يحيى بن خالد لابنه عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهل وأنا أكره أن تكون عدو على شيء من العلم. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم أول ما يهتمون به تجاه الطفل هو أن يعلموه القرآن الكريم والحديث الشريف ثم بعد ذلك يعلمونه بقية العلوم. First of Allah, thanks for allowing us to appear in front of students and principals. After that, today I want to suggest a topic about ethics of human. Being ethical can help you to become a better human being. Ethics relates to establishing standards of right and wrong, usually created by society. Ethics does not mean mere conformity to societal norms. Personal enrichment and growth depend on the ability to redefine ethical value as we grow older. All people believe in that if a person has morals, he is the best leader in the world. As we know, our Prophet Muhammad, peace be upon him, to hadith إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
all my students and my dear teachers, I am conclusion my speech. Goodbye and good luck. And also I am saying sisters and brothers, good afternoon, goodbye, goodbye. muslimku waa wada walaal marnaba kala maalmi karin inay ismaciinsadaan ayaa mawluhu amree haddaan maankiyo qalbigu midiyo isku meel ahayn gacmuhu ay wada misidin marnaba guul lama heleen waxaa madaxkayda iyo madhaafaan laga dhigtaa miisaanka lagu kororsadaa abaalaad muujiseen walaalka ruux malgiyey intuu miishaar la baxay haddana margiyada ka jaray haddaadan ka muujin ficil mar kale adiga ku xiga waxay mahmaahdu tahay mujrimka falastiin la degay madfaca aan meel ka duwin muslimka aan maanta dhugan barrina isagaa u maqan bal eeg maantada la dilay bal eeg hooyada mutuuxan bal eeg micisiyo duqayda waxaa meydkooda waran marin kasta waa meel bannaan hadday berri madal ahayd macaasku ku socon jiro bulshadu ay ku miiganayd muslimku waa mahsan yahay maanka wada fooraro mayilkii waa laga masaxayo dhammaan waa muraalu joog jihaad baa muuqde haddaynan wada masixin wallaan maskab loo helayn mujaahidka xamaas mawlaa garab siinayo mar walba u gargaarayo yuudana marinayo rabbaa maamuusaye haddii falastiin martaan meyraaca lagu laasto oo midiyo labo ay haraan adaa masarey ku xiga warhooy muslinow imaqla daynaan wada misidin biri hadday madal ahayd wallaynaan meelu tegin rabbow muslimka dayacan rabbow bahaluhu mireen rabbow way ismagansadaan rabbow mid quraan ka dhigo rabbow masaakiinta u micin daraar buur bay sidaa dhambaal weeyaan wakhtigu rajadu guushay dhashaa caqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhanka wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa erina waxaa loo dhigtaa dhankiisa wanaagga lee haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruuxa dhahaa dhegtiya afku hays maqlaan adkaysi haddaad u dhalan afeeftaa lagu dhaqmaa dhammays aadmigu ma ahan dhowaan arag baynu nahay caqlaa la isdheeriyahee khalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu ninba dhan u arkaa runbaa qowl lagu dhidbaa been baan weligeed lib dhalin nafsigu waa soo dhaxaa dhagxumo waa laga durkaa sharaftu waa dhowrsashada iimaanka laga dhargaa dhariga kali quuta ruux waxaa ka dhadhama macaan dhiiloo wadaagta toban dhulkaagaa lagu hodmaa qurbaa lagu dhalan rogmaa qaranna waa loo dhintaa dhiig baa calan loo shubaa abwaankii dhaqanbilee sidii dhaygeel murtida dhisiin jiray aadmigiiyo tixbuu kaysana ku dhahay baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigood iyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiirigeli inuu dhaafiyo riddada halkuu qayrkaa wax dhigay waayuhu waa dhowr wajile mar buu dhool kuu curtaa dhijaamuhu biyo tufaan dhirtuna ubaxaysataa geeluna badi kuu dhalaadhay iyo xoor buuxsataa mar buu kula dhalan rogmaa cirkuna dhibic joojiyaa dhulkuna angagaa abaar dhammays aadmigu ma ahan dhowaan arag baynu nahay caqlaa la isdheeryahee khalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu ninba dhan u arkaa dunidu waa dhabanahays nin dhalan iyo waa mid dhiman dunidu waa dhabanahays nin dhalan iyo dhib iyo khayr dunidu waa dhabanahays nin dhalan iyo waa mid dhiman
ogow waa yeelka dhacay mar buu dhallinyaro ahaa dhaqsuu ku socdaa wakhtigu waagii subax kuu dhashiyey libdhada galinkuu dhacdaba wadkaad u dhowaanaysaa ifkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakhirada waxaa jahnamo ku dhaca dhambiisheeduna gubtaa ninkii dhabbadeeda mara jannana dhaya laguma helo dharaarta qiyaamahana waxaad dhitakaysatiyo waxaad dhigataad heshaa dhankaa waxaan uga socdaa wax dhacay dhaafow ka gudub wakhtigu yuu kaaga dhumi dharaarada raata tegay u yeela dhugsaa dambiya dhigtiya tala kaa rabtee ha kicin dhiiliyo colaad dirkaagu hadduu isku dhaco suldaan dhexdhexaadsho noqo dhannaba yaan lagugu tirin u dhoolla caddee khalqiga dhawayse qofkii ku neceb ha dhaawicin ruux ku jecel dhegtaaduna yay mid noqon dhegaysato kali xumaan wax dheeldheelkaa ah buu dhabaystaa aadmigiyo hadaylkuyu kaa dhecdhici أولا بسم الله بسينكان وبانيا بسينك كوبيلها بيو آيذها قرآن بسين وحاله بلها بين بارك مليه برويانو إسلام كوبد بهذيا وانو بارنا يا ربو باسكنا حجاب ما هذا وحاي إسكالي الله مقاوين ناقاس الرئيسي هي كولا جدك سمن قجرا ناونا ساعدي إنها نقوش السارقنا سهل ناقوقي هي فينا الكام فردنو ناصبنا ناقوسي هي مقاعاني اللهين وناقاس الرئيسي هي يرضي ياسنها اللهين وناقاس الرئيسي هي يرضي ياسنها اللهين علمي برشا ذا برهانتي سبان وذا وما عاجقي عهان بحو علمي لينو ناي midkiisa lagu soo hirto hayba leeyno nahay oo midkiisa lagu soo hirto hayba leeyno nahay cilmiga barashada horseedi kadibeyno nahay oo cilmiga barashada horseed kadibeyno nahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri cilmiga dalabkiisu wuxuu farad ku yahay qofka gaar kasta muslimada iyo nin kasta muslima wuxuu kala nabi yiri qofkii qaad dariiqaas oo ku dalbay cilmi ilaahay wuxuu saarayaa dariiq jannada ah wuxuu kala nabi yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii cilmi siyaasada ilaahay agtiisa aan ka siyaasan zaahidnimo ilaahay agtiisa kama siyaasay ilaa fogaansho mooyee wuxuu kala rasuulku yiri qofkii amal falaah بغير علم قفك معني أسوأ جاهل أسكع عمل فلا وأتفتح كل أنت أعماشي سكول الردني وي لما أنا أقبل أيه إلهي سبحانه وتعالى وحي نسوناتي وحي نكوسوناتي رسول كله هيدا يشون أحسن وحي نوسوناتي اللي ما بيوسوناتي إله رجاني إنه لكل ما مالك آخرة وإلهي حسين بدن إلهي وحي رسول كله يماده قاطع وحي كان يانا كهرة رسولك صلى الله عليه رسولك وحجري وحين كتجي دحدينا لبا شيء إن اللومين بعد الجد لبا شيء سنة وحوي كتابك إله يسند النبي رسولك وحجري قفك إله يا داع قفك أنا يا داع إلهي وداعي قفك يا عاصينا إلهي بعاسي وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وما ما أنت وحي قال يا جنة إلا قفك ديدا مويه أصحابته واحد رسولك يا جنة ديدا يا النبي صلى الله عليه وسلم محجري قفك أنا قاعد دخل الجنة جنة وقال يا كي عاصينا دي فقد أبا جنة وديدا